gobolka qaarkood ka joojisay howlihii bani'aadanimo ay ka wadeen gobolka Tigreeda kadib markii ay ku eedeysay warfaafinta warar been abuur ah. arrinta taroorta eedaynta oo koox la eedeeyo si oo marmarsiyo loogaga dhigto wax cusub maana wax meelaha dagaaladu ka dhacaan oo dhan ay isticmaalaan weeye caddayn ay Ethiopia keentay oo hadda xaqiijinaysa in maaragtay hay'adahaas hub wadeenna anigu ilaa hadda ma maqal eedayn un baan maqalnay. gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu sheegay inuu doonayo mideynta iyo inuu cadaalad u sameeyo xildhibaanada isagoo aan eegaynin xisbiyada ay ka kala soo jeedaan. waxaa kaloo barnaamijka ku maqli doontaan dagaal kharaar oo ciidamada dawladda Afghanistan iyo Taliban ku dhex marayo magaalada Lashkargah iyo wararkii ciyaaraha. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo si wada jir ay u soo saareen Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh iyo Cabdulqaadir Yusuf Cali anigoo Xasan Cali Geelayaan halkan idin kala socodsiin doona hadduu eebaha awoodda la idmo balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Ciise Xaji Cabdulle. mahadsanid xasan. lubnaan waxay qabanaysaa maalin baroordiiq ah iyadoo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee qaraxii ka dhacay bartamaha Beyruut. in ka badan 200 oo qof ayaa ku dhintay markii tiro aad u badan oo maadada ammoniumka ay ku qaraxday dekedda. jabiga magaaladaasi ayaa lagu tilmaamay maanta inay ahayd mid murugo badan balse hase ahaatee shacabka ayaa ka caraysanaa in aan cidna lagala xisaabtamin qaraxii dekedda ka dhacay 4 Agoosto sanadkii 2020. dhanka kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Lubnaan inay shacabkooda runta u soo bandhigaan una sheegaan wixii ka dhacay dekedda Beyruut sanad ka hor. madaxweyne Macron ayaa hadalkaasi jeediyey xilli uu furay shir dhaqaale loogu ururinayo dalka Lubnaan. Il y a maintenant 1 an, l'enquête a été lancée. La France et plusieurs autres ont coopéré. muddo sanad ayaa laga joogaa markii la bilaabay baaritaankani. Faransiiska iyo dalalka kaleba waa ay u hoggaansameen. macluumaad badan ayaan bixinay. mar kalena waxaan diyaar u nahay inaan bixinno wixii taageero farsamo ah ee loo baahan yahay. waxaan u malaynayaa in siyaasiyiinta Lubnaan ay shacabka ka mudan yihiin inay runta u sheegaan noqdaanna kuwa ka hufan qaraxii dekedda. Il en est de même enfin pour la tenue des élections au printemps prochain. madaxweynihii hore ee koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa talaadada nagu soo aadan laga sii dayn doonaa xabsiga si uu ugu soo hormuuqdo maxkamad dhegaysan doonto dacwadda musuqmaasuq ee loo haysto. go'aankan ka soo baxay maxkamadda ayaa imaanaya toddobaadyo uun kadib markii in ka badan 300 oo qof ay ku dhinteen rabshadihii ka dhashay xiritaanka Jacob Zuma. waxaana lagu wadaa in la xoojiyo amniga dalkaasi xilli ay u muuqato in taageerayaasha Zuma ay isugu soo ururi doonaan maxkamadda ku taalla magaalada Pietermaritzburg. waana magaalo ay si weyn u saameeyeen rabshadihii iyo boobkii laga geystay halkaasi. dowladda Itoobiya ayaa hakisay shaqadii ay gobolka Tigray ka qaban jirtay 2 hay-adood oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka. hay-adaha MSF waxaa laga joojiyey howlihii gargaarka ay ku fulin jireen Tigray iyo 3 gobol oo kale halka hay-adda NRC ay sheegtay in tallaabadan ay saameysay howlihii samafalkii ka qaban jirtay guud ahaan Itoobiya. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in kooxaha gargaarka ay faraha la galeen waxaan shaqadooda ahayn ayna shaqaalaysiiyeen shaqaale ajaanib ah oo haysan waraaqaha ogolaanshaha ee ay ka howlgalaan dalkaasi. Itoobiya waxay sidoo kale hay-adahan ku eedeysay inay baahinayaan warar marin habaabina. hay-adda NRC ayaa caawinaad u fidisa ku dhowaad 600 oo kun oo qof oo ku sugan dalka Itoobiya. ciidamada dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar ay kooxda Taliban ku soo qaaday xarunta taliska booliska ee gobolka Helmand ee koonfurta dalkaasi. marsii horeyse wararku waxay sheegayeen in dagaalyahanada ururka Taliban ay ku sii siqayeen magaalada Lashkargah. galinkii hore ee maanta ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay weerar culus oo lagu qaaday guriga wasiirka gaashaandhigga Afghanistan ee ku yaala magaalada Kaabul. Bismillah Khan Mohammed ma uusan joogin gurigiisa xilli dable ay isku qarxiyeen baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ay la beegsadeen goobta amnigeeda si weyn loo adkeeyey aagga cagaaran. qoyska wasiirka ayaa laga daadgureeyey guriga waxaana la dilay 4 ka mid ah dableydii weerarka soo qaaday. kooxda Taliban waxay sheegatay inay ka dambeysay weerarka. waxaana lagu soo warramaya in 20 qof ay ku dhaawacmeen weerarka oo ay ka mid yihiin ilaaladii wasiirka gurigiisa ku sugnaa. Kai Ed wuxuu ahaa ergeygii hore ee qaramada midoobay Afghanistan laga soo bilaabo sanadkii 2008 ilaa 2010
wuxuuna qiimeyn ku sameeyey istaraatiijiyadda cusub ee Taliban hadda la timaaday. What's going on now is that the Taliban is trying to improve its position, strengthen its position. Waxa waqtiga aan joogna socda ayaa waxay tahay ururka Taliban inuu isku dayayo inuu qabsado dhul xajistaana goobaha ay joogaan haddana wax wada hadallo ah hore loo sii wado ha yeeshee habka uu u socdo wada hadallada haatan ayaa ah hanaan wax badan u eg qaabka wada xaajoodka ee isdhiibitaanka halka Talibanna ay culayska saarayaan awoodda guud ee dalka. Surrender where the Taliban will take the brunt of the power in the country. Golaha wasiirada ku meel gaarka ee Suudaan ayaa ansixiyay hindisa sharciyeed lagu gogol xaaraya inay ku biirto maxkamadda dambiyada caalamiga ah tallaabadaasi oo lagu xukumi karo madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar al-Bashir oo loo haysto dambiyo xasuuq iyo dambiyo dagaal intii lagu jiray colaadii Darfur. hindisa sharciyeedkan ayaa weli u baahnaan doona taageerada golaha sare oo ay ku jiraan qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee militariga. ugu dambeynna ra-iisul wasaaraha Malaysia Muxyidiin Yaasiin ayaa ku adkaysanaya inuusan iscasili doonin waxa uuna sheegay in codka kalsoonida weydiisan doono baarlamaanka bisha soo socoto. cadaadiska dadweynaha ayaa ku sii kordhaya Mr. Yaasiin inuu xilka ka dego iyadoo Malaysiana ay la daalaadhacaysa kiisaska Covid ee sii kordhaya. Andi badan kugu celiyo Xasan iyo barnaamijka qaybihiisa kale. aad ayuu mahadsan yahay Ciise Xaji Cabdulle oo warka caalamka nala socodsiinaya dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. وهجاج أنكو بلون مجالات مقدشو جودة دورشوين كهير فدرال أي كور جليي كوي طبعا كحبناد جودة دورشوين كحل بعنادا قبل هذا وقوي الصوماليلاند إن دورشادو جودون كجودة لقبان دونه ما أنت سبتده فوضى نقصه هاي سو يدو كدي عدون تحردا أفسيوني مجالات مقدشو arrintan ayaa imaanaysa maalin uun kadib markii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu kulan la qaatay 11 xubnood ee guddiga oo hore isugu khilaafay qaabka ay isu dooranayaan durbaba siyaasiyiinta reer waqooyiga ee uu hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa ka soo horjeesaday in 11 xubnood isdoortaan iyagoo taa beddelkeedana codsaday in 8 kaliya iska dhex doortaan guddoonka guddigaasi haddaba si aan u helno faahfaahinta dheeraad ah waxaa haatan qadka Lucy Live si toos ah ugu jira magaalada Muqdisho wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan. Ibrahim noo waran maxaad haysaa? xasanow warqad ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer federaal oo nuqul ka mid ah ay BBC-da heshay ayaa lagu sheegay in iyadoo la tixraacayo go'aankii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu shalay ka gaaray xalinta arrimaha guddiga hirgelinta doorashada ee Somaliland iyo go'aanadii xalay ka soo baxay shirka khadka internetka ee fogaan aragga isku arkeen golaha wada tashiga qaran ee khuseeyay isla arrintan in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxa uu ku wargelinayaa baa la yidhi 11 xubnood ee guddiga doorashooyinka Somaliland in doorashada guddoonka guddiga Somaliland la qaban doono maalinta Sabtida ah oo ay bishu ku beegan tahay 7/2021 goobta waxaa lagu sheegay in ay tahay xerada Afisyoone guddigu waxa uu sheegay si loo xaqiijiyo in doorashooyinka labada aqal ay ku dhacaan waqtigii loo qorsheeyay si looga fogaado dib u dhac ku yimaada jadwalka doorashada waxaa mar labaad dhammaan xubnaha guddiga la farayaa bay yiraahdeen in doorashada guddoonka guddiga Somaliland lagu dhameystiro waqtiga kor ku xusan khilaaf ayaa ka taagnaa xubnaha guddigan markiisii horeba waxaa lagu dhisay 8 kamida min 4 waxaa soo magacaabay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi 4 kalena ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed khadar halka 3 xubnood kalena uu ku daray ra'iisul wasaaraha dhinaca cabdi xaashi waxay qabeen in 8 xubnood ay isdoorato haddii ay doorasho ku kala bixi waayaanna loo qaybiyo guddoonka halka dhinaca kale ay qabeen in guddigu uu ka kooban yahay 11 xubnood 11 kaasina isdoorato 7 ayaa qabatay doorasho oo guddoon dooratay halka markii dambena 4 kale ayana ay sheegeen inay guddoon doorteen marka dabcan khilaafka ayaa xasan oo taagnaa laakiin hadda ra'iisul wasaaruhu sida muuqato waxa uu door bidayaa in 11 xubnoodba ay isdoortaan ha yeeshee goordhoweyd siyaasiyiinta reer waqooyiga ee uu hogaamiyo cabdi xaashi cabdulaahi waxayba ka soo horjeesteen in doorashada sabtida ah ay ka qayb galaan xubnaha 11 wasiirkii hore ee warfaafinta haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka maxamed cabdi xayir maareeye waxa uu sheegay in aanay aqbali doonin in 11 xubnood ay isdoortaan xasan geelle ay u warramay warqadda hadda ayaan social mediaha ku arkay wax saxiixa ma leh waxaa og ku leh gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran ee fiid oo ah meesha ay leeyihiin warqad waa ka soo baxday marka hadday sax tahay waan arkay warqad wadahadalladii
xalka loogu raadinayay khilaafka ka taagan madax bannaanida doorashada xildhibaanada ka soo jeeda somalilan ee ay lahaayeen gudoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo ra-iisul wasaaruhu layskuma afgaran oo wax heshiisa ilaa hadda lama gaadhin gudoomiyaha aqalka sare markaa ra-iisul wasaaraha wuxuu u gudbiyey doraad warqad uu ku soo qoray qaasida uu u arko in xalku ku imaan karo qodobada laysku hayo ee ay ka mid tahay sidii loo midayn lahaa guddiga labada garab u kala jabay ee labada guddoon doortay iyo goobta doorashada iyo sidii doorashadaasi ay u noqon lahayd mid madax bannaan oo dadka lihi maamushaan oo si xor iyo xalaala u dhacdo aragtidiisa ayuu warqad ugu qoray ra-iisul wasaaruhuna weli kama soo jawaabin maraya waxaa jirtay in arrinta laysku haystay ay ahayd 11 xubnood iyo 8 xubnood marka idinku maxaad ku diidan tihiin 11 xubnood ee guddiga ka kooban yahay inay isdoortaan sida uu ra-iisul wasaaruhuba qaba waxaanu ku diidannahay horta marka horreysa annagu waxaa jiray wadahadal iyo heshiisyo laga lahaa qaabka loo dhisayo guddiga doorashada siid ee somalilan sida loo dhisayo ayaa waxaa jiray heshiisyo ay ka mid tahay markii ugu horreysay 27 May in lagu heshiiyey in guddigaas 6 xubnood oo ka mid a uu soo magacaabo gudoomiye cabdi xaashi 6 xubnoodna uu soo magacaabo ra-iisul wasaare ku-xigeenka 3 xubnood oo xagga dowladda federaalka ka imanayo ra-iisul wasaaruhu hayay actually 5 xubnood bay ahaayeen labaa kor aadayey oo guddiga khilaafaadka iyo guddiga fiid aadayey iyo 3 xubnood oo guddiga hoose ee somalilan gelayey waxay ahayd 5 xubnood in la qaybsado ayaa lagu heshiiyey heshiiskaasi kii koowaad buu ahaa markii aanu 6 magacawnay gudoomiyuhu 19 juun ayuu la kulmay ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi 5 xubnood saamigayagii naga wuxuu yidhi ra-iisul wasaaruhu kaama siinayo oo waxba idinkama siinayo anaa magacaabayo kulli laakiin dad dhexdhexaada ayaan magacaabayaa doorashadana kama qayb geli doona markhaati bay lahayd oo gogol markhaatila bay ahayd marka sidaasaanu 5 xubnood wixii aanu ka heli lahayn isaga dhaafnay ra-iisul wasaaruhu markaa wax dhexdhexaadana ma magacaabin oo kulli wuxuu siiyey tiimka kale ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo ra-isul wasaare ku-xigeenkiisii ah marka muranku halkaasuu ka bilowday marka annagu marna doorasho 11 ay gelayaan kama qayb gelayno wixii lagu heshiiyena maaha waxa bulshada kuraastan iska lihi ay qabtana ma aha 8 kaliya ayaa doonaysaan inay doorashada gasho marka 3 kale maxay qabanayaan wixii lagu heshiiyey waaye siyaasaddu waa heshiis iyo wada hadal iyo 3 xubnood ee kale dee waxa soo magacaabay ra-iisul wasaaraha waan kuu sheego markii hore waxay ahayd in la qaybsado laakiin meelo badan aanay ka qayb gelin baa jira hadda jubbaland oo kale 8 xubnood ee deegaanka laga soo magacaabay ayaa guddoonkoodii doortay meelaha kale laftigooda madashu laftigooda waa ka wada hadashay in maaragtay 8 kaliya isdoorato marka wax oo qariiba ma aha in 8 isdoorato wax sharciya oo lagu heshiyo ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in guddigu ay dib isu dooran doonaan isagoona u kala saarin 8 iyo 11 haatana waad aragtaan guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay sheegeen in 11kaas xubnood ay isdooran doonaan marka haddii doorashadaasi ay dhacdo maalinta loo asteeyay oo 7 ah idinku go'aankiina muxuu noqonayaa horta marka ugu horreysa ra-iisul wasaaraha waxaan kula talinayaa oo aan jecelahay inaan kula taliyo inuu sidii uu ballan qaaday dadka dhexdhexaad u noqdo doorasho degan oo heshiis lagu yahayna uu wado ee aanu dhinac gaara aanu gacan siinin sida hadda ka muuqata annaku ummad baanu metelnaa shacabka kuraastan iska leh ayaanu metelnaa annaka iyo 4 xubnood oo ah 4 xubnood ee keliya ee ku hab wada tashi bulshada lala yeeshay ee guddiga ummad ayaanu metelnaa ummadda go'aankeeda iyo rabitaankeeda iyo madax bannaanidooda doorashadooda iyo kuraastooda inay madax bannaanaadaan ayaanu talagelinaynaa ku shaqayn doona hadalkaaga markii la eego iyo xitaa warqadii gudoomiye cabdi xaashi waxaa muuqatay inaad hanjabaad jeedinaysaan oo aad leedihiin innaga dad baan matalnaa marka kuwa kale ee 11 guddigan ku jira iyaga dad ma matalaan miya waxaan ku idhi 4 xubnood ee cabdi xaashi soo magacaabay waa kuwa keliya ee bulshada iyo beelaha si furan iyo siyaasiyiinta iyo musharaxiinta filalka ku cusub ee hadda doonaya inay tartamaan si weyn loogala tashaday oo rabitaanka dadka ku yimid marka annagu mar walba hanjabaad ma jeedinayno waxaan leenahay dadka reer waqooyiga ee halkan jooga ee midnimada u jooga inay kuraastooda maamushaan inay doorashadooda si madax bannaan u maamushaan inay si xor iyo xalaala ugu tartamaan ayaanu u taagannahay taas baanuna insha allah tacaala ka shaqay doorashadaasi haddii ay dhacdo sabtida soo socdo 7 oo 11kaas xubnood isdoortaan ma aqbalaysaan mise waa diidaysaan muxuu noqonayaa go'aankiina annagu wixii aanu ku heshiinay ra-iisul wasaaraha aan kuu sheegay lagu heshiiyey haddana wadahadal ka socday iyadoon wadahadalkii la dhammayn warqaddii guddoomiyuhu u geeyey laga soo jawaabin wixii hal dhinac sameeyo annagu shuqulkuma leeyi kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cabdi maareeye oo qadka telefoonka igu warramayey ibraahim maxamed aadan weli qadka ayuu kusii jiraa ibraahim isla wararkii doorashooyinka soomaaliya iyo ammaankooda ayaan ku guda jirnaaye waxaa jirta in maamulka galmudug uu magaalooyinka ay doorashadu ka dhacayso uu ka mamnuucay in hubka lagu qaato arrintaasi maxaan kala soconnaa
xasanow magaalooyinka dhuusamareeb iyo galkacyaba waxay isu diyaarinayaan doorashada kuraasta aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka waxaana la filayaa in tartanka kuraasta ugu adag inay ka dhici doonaan magaalooyinkaasi dabcan marka amniguna wuxuu noqon doonaa arinta ugu weyn gobolka saameynta ku yeelan doonta waxaadna ogtahay in maalmihii ugu dambeeyeyna dagaalo xoogle ay ka dhacayeen qaybo ka tirsan gobolada ay galmudug ka kooban tahay halkaasoo ay ciidamada dowladda ay taageerayaan ciidamada cirka ee maraykanku ay duulaan ku hayeen al-shabaab gaashaanle sare khaliif cabdulle maalin taliyaha qaybta guud ee booliska galmudug oo wariyaasha kula hadlayay magaalada dhuusamareeb isagoo ay dhinaciisa taagan yihiin duqa dhuusamareeb iyo sarkaal ka tirsan militariga soomaaliya waxa uu ka mamnuucay magaalada dhuusamareeb iyo magaalada gaalkacyo oo doorashadu ka dhacayso in gaadiidka dagaalka lala soo galo magaalada ama lagu dhex wato sidoo kale hubka marka laga reebo hay-adaha amniga ee maamulka galmudug gaashaanle sare khaliif cabdulle maalin markii uu hadlayay go'aanada ee guddiga amniga ee galmudug ka soo baxayna uu akhrinaya waxa uu yidhi sidan guddiga amniga galmudug wuxuu mamnuucay dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex haysto galmudug gaar ahaan magaalooyinka deegaan doorashada ah sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo laga bilaabo maanta 4 August 2021 ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud gaar ahaan magaalooyinka waxaa la mamnuucay gabi ahaanba in eerboorada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysan ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay-adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinay xasanow kaasi wuxuu ahaa gaashaanle sare khaliif cabdulle maalin taliyaha qaybta guud ee booliska galmudug dhuusamareeb waxaa lagu dooran doonaa 8 kursi oo aqalka sare ah oo baarlamaanka galmudug uu dooran doono sidoo kale 22 kursi oo golaha shacabka ayaa taala magaalooyinka gaalkacyo iyo dhuusamareeb xasan waa gartay ibraahim arinta marka la fiiriyo galmudug ee hubka la mamnuucayo maxaa loogu baahday in hubkaasi laga mamnuuco magaalooyinka galmudug ee ay doorashadu ka dhici doonto waa su-aal muhiima xasanow doorashadu hadda magaalooyin bayba ka bilaabatay kismaayo iyo baydhabo iyo wararkaas in hubka laga mamnuucayana maynaa maqlin marka maxaa dhuusamareeb iyo gaalkacyo ku cusub dabcan magaalooyinkaas waxaa yaalla kuraas tartankoodu adag yahay warar hore oo soo baxayna waxay sheegayeen in siyaasiyiin badani ay doonayeen inay magaalooyinkaasi tagaan iyagoo hub sita ama gawaarida dagaalkana ay sii qaataan ama ay diyaar u yihiin in ay tagaan haddii amnigooda uu khatar galo ama doorashada la isku qabsado marka dabcan baqdin badan baa jirtay magaalooyinkaasi in siyaasiyiin badan ay hub la tagaan marka dad badan waxay leeyihiin taas ayaa maamulka galmudug uga hortegaya in xiisada ay magaalooyinkaasi ka abuurmaan sidaa daraaddeedna si amniga gacanta loogu dhigo in siyaasiyiinta aan loo ogolaan inay hub la galaan magaalooyinkaasi marka ay doorashadu dhacayso kaasi wuxuu ahaa wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo qadkaasi toosa ugu jiray dhegeystayaal ayaa ra'yigooda ka soo dhiibtay wararkaas isxambaarsan ee ku saabsan doorashooyinka soomaaliya haddii aan eego jaamac maxamuud xirsi oo joogo degmada gaashaamo waxa uu leeyahay doorashada guddoonka guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee la shaaciyey maalinta la qabanayo runtii waan bogaadinayaa waxaana rajaynayaa in arrintaasi ay soo afjari doonto khilaafka ka dhex taagnaa siyaasiyiinta gobolada waqooyi arrintii galmudugna maxamed qare oo jooga muqdisho ayaa ka soo qoray fariintan waxa uu leeyahay maamulka galmudug ee hubka ka mamnuucay magaalooyinka ay doorashada ka dhacayso waan bogaadinaya waana filayaa inuu wax tarayo amniga goobaha ee doorashada ka dhacayso amarkaana ka yimid maamulka galmudug ayuu waa hagaag halka aad dabcan naga socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba wararka soomaalida ayaan weli ku jirnaaye sicir barar ba'an ayaa ka jira qaybo ka mid ah dalka Ethiopia kaasi oo sabay xitaa in la xiro ganacsiga magaalada Dirdhabo kadib markii lacagta dalkaasi birta ay qiimo dhacday marka loo eego lacagta dollarka oo lagu sarifayo sarifka lacagtaasi birta ayaa gaaray meelaha qaar meeshii ugu hooseysay abid
waxaana maalin ka hor boqolkii dollar uu gaaray ilaa iyo 7,500 oo bir. wariye Ismaaciil Buurgaabo ayaa ka faahfaahinaya arrintaasi. xasanow ganacsatada ku dhaqan magaalada Dirdhaba oo nala soo xidhiidhay ayaa noo sheegay in meheradahoodii la xidhay. ganacsatadan oo ah kuwa ka ganacsada raashinka ayaa gabi ahaanba la xidhay meheradahoodii ganacsiga kadib markii maamulka magaalada Dirdhaba uu tallaabadan u qaaday si uu uga jawaabo cabasho ka imaanaysay shacabka ku dhaqan magaaladaasi Dirdhaba oo qiimaha maciishada uu kor ugu kacay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo guud ahaanba sanadihii ugu dambeeyay sicir barar dhanka maciishada ah ee uu ka jiray guud ahaan dalka Itoobiya. qaar ka mid ah ganacsatada meheradaha raashinka iibiya ayaa waxa ay ka cabanayaan in aan tallaabo laga qaadin dadka markaasi soo dejiya raashinka oo iyaga qiimo zaa'id ah uga gadayo ayagana si ay wax uga faa'iidaan ay wax sii dul saaranayaan. shacabka ku dhaqan magaalada Dirdhaba qaarkood oo nala soo xidhiidhayna waxa ay soo dhaweeyeen tallaabadan ay qaaday xukuumadda oo ay leedahay ugu yaraan waxay wax ka qaban kartaa qiimaha kor u sii kacayay ee raashinka iyo maciishada daruuriga ah iyadoo guud ahaanba Itoobiya laga dareemayay sicir barar. tallaabooyin kala duwan ayay heerar kala duwan ee xukuumadda Itoobiya ay qaadayeen si markaas wax looga qabto sicir bararkan oo aad u saameeyay malaayiin ku dhaqan dalkan Itoobiya. maalintii shalay ahayd booliska federaalka ayaa magaalada Addis Ababa ku qabtay shabakad uu sheegay inay markaasi xiriirsaneed Addis Ababa ilaa iyo Wajaale taas oo markaasi ka qayb qaadanaysay korukaca ku yimid ama sicir barar ku yimid maciishada. dadkan la qabtay oo dhammaa 12 shakhsi ayaa waxa kale oo sidoo kale kamid ahaa in la xidhay ilaa iyo 6 xawaaladood iyo bangiyo kala duwan kuwaasoo dawladda ay ku eedeysay inay ka tirsanaayeen kooxda TPLF oo markaasi khalkhal gelinayay dhaqaalaha guud ee dalka. dawladda deegaanka Soomaalida maalmihii aan soo dhaafnay waxa soo baxayay go'aamo markaasi ay hirgelinaysay si markaasi hoos loogu dhimo sicir bararka isa sii taraya iyadoo sarifka dollarka magaalada Wajaalana uu ahaa mid aan deganeyn toddobaadkii la soo dhaafay inkastoo dadaalo la sameeyay maanta la sheegayay inuu korukici uu gaaray toddobaadkii hore in hoos uga soo dhacay oo iminka uu taagan yahay 6,000 ilaa iyo 6,800 oo bir boqolkii dollar. taasina waxay ku timid dadaalo ay sameeyeen maamulka qaybihiisa kala gedisan. xasanow kaasi waxa uu ahaa wariye Ismaaciil Buurgaabo oo inoo faahfaahinaya sicir bararkaasi saameeyay ee ganacsiga magaalada Dirdhaba. isla wararkaasi sicir bararka ayaan ku jirnaayay maamulada labada dhinac ee magaalada Wajaale ayaa ku heshiiyey tallaabooyin dhowr ah oo wax looga qabanayo qiimo dhaca xoogan ee ku yimid lacagta Itoobiya ee birta iyadoo sarifkan uu gaaray maalmaha qaar ilaa iyo 7,500 boqolkii dollar lagu sarifayay. hoos u dhaca qiimaha lacagta birta ayaa loo aaneynaya colaadda ka taagan waqooyiga Itoobiya walow uu arrinkaasi beeniyay maamulka deegaanka Soomaalida. Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed waa meeyarka Wajaale ee dhanka Somaliland. wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa ka wareystay qiimo dhaca lacagtaasi birta iyo tallaabooyinka ay ku heshiiyeen labada dhinac. lacagta dollarka aad u kacday oo waxa hoos u dhacday lacagta birta. annaka kulliisha la socotaan magaalada Wajaale waa magaalo xuduudeed. annagu waxaan nahay qaybta Somaliland shilinka iyaga Somaliland shilinka iyo dollarka xididkoodu si fiican bay u fadhiyaan laakiin maadaama degmadu tahay degmo xuduudeed waxa aad hoos u dhac dadka ganacsatada wax ka iibiyaan dadka ganacsatada Itoobiya nooga soo safar waxa hoos u dhacday birtii. markaan u aragnay in degmadiina dadka iyagu birta wax ku iibinayaan waxaan u shaqaynaynay bulshadii tahay waxaan galnay kulan degdega oo aanu ka wada tashanno labada maamul ee heer degmo arrimaha halkay marayaan iyo sir wax uga qaban lahayn iyo inuu qaadno tallaabooyin wax ku oola si aanu u badbaadino maciishada halka ku dhaqan. waan gartay marka maayar dhibaatadani dollarka inuu si lama filaana uu sare uga kaco oo labada dhinacba isu socodka ganacsiga uu saameeyo dhibaatadani halkee ka timid ama maxaa sababay? dhibaatadu waxa ay salka ku haysaa uun qalalaasaha xilligan ka taagan Itoobiya taasaa keentay ganacsatadii Itoobiya ee lacagta birta ee badan haysay inay dhammaan lacagihii Wajaale isugu keenaan si ay halkaa Wajaale uga soo adeegtaan. annagu inta badan ganacsatadayadu markaanu bir kaga qabanno dollarba ay ku bedelan jireen $1 meesha laga waayo yaraaday. taasaa keentay in raydkii dollarku kor u kaco kii birtuna hoos u dhaco. taariikhdaba ma dhicin in isbeddelkan intaan leeg uu ku yimaado ama dollarka uu sidani sare uga kaco. mar haddii aad ka tashateen labadiinni maamul ee labada Wajaale Itoobiya dhinaca Somaliland maxaa xal oo markaasi isla qaadateen oo aad isleedihiin arrintani xal baa laga gaari karaa ama lagu xallin karaa? walaal waxaanu isla qaadanay
waxaa halkaa ka soo baxay 4 qodob baanu isla qaadanay 2 qodob iyaga xaggooga ay khuseeyaan 2 qodobna annaga xaggayaga ay khuseeyaan 2 qodob iyaga xaggooga khuseeya waxa weeye in lambarkooda bangiyadooda ay hoos ugu dhaadhacaan xaaladooda oo waayo isbedelka doolarkiina bangiyadooda xaraystay kaash badanna oo Ethiopian birana suuqa soo gelinayay marka lambarkow inay bangiyadooda ku noqdaan iyo ganacsatadooda isku xidhaysa doolarka wajaale iyo adiis iyo jigjiga inay iyagu labada qodob ka shaqeeyaan annaguna ka maamul ahaan laba qodob ka shaqeyno oo ah sarflayaasha xaggayaga iyo xawaaladaha aanu hoos u eegno dhibaatadani markii ay dhacday kadib wararku waxay nagu soo gaarayaan in dhinaca wajaale ee Somaliland gebi ahaanba laga joojiyay in la qaato lacagta birta ah marka arrintaasi soo saameyn kuma yeelan karto isu socodka ganacsiga labada dhinac annagu waxaanu ku shaqeynaa lacagta la yiraahdo Somaliland shilling oo lacagteeda ah doolarkana waxbaanu kaga iibinaa Ethiopianka birtoodana waxbaanu kaga iibinaa birtii markii reeyfeegi fadhiisan waayay ee ay isbedbedesho ee $100 hadba ay moogtahay sare u sii kacayo ee ganacsatadayadii wax may diidin kale laakiin waxay soo go'aamiyeen oo go'aan ay ku soo rogeen kaliya in lacagtooda Somaliland shilling ay wax ku iibiyaan iyo doolarka taasa keentay deynana birta iska kantaroolaan maadaama meel fadhiisan weeday meel sugan ganacsatada markaynu la xiriirnay waxay markaa inoo sheegeen in wax ugu badan ee hadda dhibaatada ugu weyn ay ka cabanayaan ay tahay ganacsatada ugu waaweyn ee alaabada dibadaha ka keenay yihiin kuwa dhinaca Somaliland iyaguna markaa sarifka uusan xaggooda ka deganayn ayay leeyihiin marka arrinta eedaasi maxaad adigu uga jawaabi lahayd walaal marka horeba ganacsatada waxay ahaayeen ganacsato wax kala iibsata waligeena sidan oo kale doolarku irka uma kicin oo xadiga inta le kor uma kicin waxa weeyaan xaggooga qalalaasaha ka socda iyo birta badan ee ganacsatada xagga Ethiopia ay suuqa soo galiyeen iyo doolarka la waayay baa keentay xagga Somaliland anagu waan nabad qabnaa waan deganahay doolarku anaga xaggayga u degan yahay kaliya ta xagga Ethiopia oo dhibaatadu waa xaggaas hadda xaggayga wax dhibaato ka jirto shilinkayga ka ilaha markii aanu maamulka wada shirnay in wax isla meel dhignayna runtii way qaateen in xaggooga dhibaatada ka imanayso maamulku waa isla qaadanay hadda shir baad wada gasheen dhibaatadu isla qaadatay inay jirto qodobo markaas xal aad u aragteen waad qaybsateen marka qodobadani inay hirgalayaan kalsooni intee leeg baad ku qabtaan marka wallahi waxaan walaal wada dhisnay gudi laba dhinac oo iyakana xaggooga 5 ka kooban annagana xaggayga 5 ka kooban gudidii markii ay saakaba talaabo qaadeen ee ay xaggayga qodobadii ay fuliyeen xaggoogana ay fuliyeen durba reydkii hoos buu halku marayay 7,200 halku marayay imika wax maraya saacadan aan ku hadlayo 1,400 oo wax ilaahay loogu mahadnaqo durba hoos buu soo noqday cidda u hogaansami weeyda awaamirta ay soo jeediyeen guddiga xaggayga ka socota talaabo waxaan ka qaadi doonaa sharciga waafaqsan kaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan yuusuf maxamed maayirka wajaale dhanka Somaliland waxa uu waramayay wariyaha BBC-da cabdiraxmaan xaaji cadow wahagaag warar kale oo Soomaaliya way noo soo socdaan si yeesha hadii eegno dhanka iyo Kenyana madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto ayaa ku tilmaamay talaabadii shalay daraato looga joojiyay safar uu ku aadayay dalka Uganda qorshe ka dhan ah damiciisa siyaasadeed arrintaas ayaa loo arkay inay soo shaac bixisay khilaafka waayadan u dhaxeeyay madaxweyne Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa Ruto faafaynta warkaasi waxay inoo haya Cabdiqaadir Yuusuf Cali waraysi uu saaka siiyey raadiyo maxalli ah oo la yiraahdo Inoro FM ayuu William Ruto ku sheegay inuu horay booqasho rasmi ah iyo mid gaar ahba oo aan fasax laga weydiin ugu tagay Uganda wuxuu sharaxay in socdaalkiisa uu uga gol lahaa inuu wax ka soo barto sanduuqa maalgelinta ee Uganda si waafaqsan ololihiisii ahaa in sare loo qaado nolosha dadka dakhligoodu hooseeya ee ku nool Kenya iyo sidoo kale in la kobciyo guud ahaan dhaqaalaha Kenya markii la weydiiyey sababta uusan madaxweyne Uhuru uusan war uga hayn qorshaha socdaalkiisa ayuu Ruto ku jawaabay ma hubta in madaxweynaha uusan hayn xogta safarkayga madaxweyne ku-xigeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in muddadii 9 sano ahayd ee uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka aanan marnaba la weydiin fasax la xiriira safaradii uu dibadda ku aaday wuxuuna la yaabay sababta ee hadda arrintan u soo ifbaxday Mimi si mtu mjinga ati niweze tu kutoka bila kujua ni nini inahitajika ndio niweze nitembee. Ma ihi qof garaadkiisu xun yahay oo aan fahmi karin waxa looga baahan yahay xilliga uu dibadda u safrayo. Si caadi ah ayaan u safri jiray 9 sano ee la soo dhaafay. Marka maxaa hadda keenay in qof uu igu yiraahdo qof kale ayaa telefoon soo diray oo shuruudahan ayaa lagaaga baahan yahay si aad u safarto. Goorma ayuu soo baxay amarkaas aan la ii sheegin. Dadku waxay leeyihiin waxa saaxiib la tahay Museveni. Xaqiiqadu waxay tahay in madaxweyne Museveni uu saaxiib dhow la yahay madaxweynaha Kenya sidoo kale waa saaxiibkay
xitaa waxaan ka qayb qaatay ololihii doorashadii u dambeysay ee uganda waxaana sidaas si la mid ah museveni ugu ololeeyey xubnaha xisbiga mucaaradka ee nasa marka sidee ayay ku dhici kartaa in saaxiibtinimada museveni ee mucaaradka aan waxba laga soo qaadin balse marka ay tayada joogto laga hadlo anigu saaxiibo ma yeelan kara miya william ruto ayaa sidoo kale faahfaahiyey macluumaadka muwaadin turki ah oo la yidhaahdo haarun aidiin oo ku jiray liiska dadka ku helinaya safarkiisa wuxuu sheegay in aidiin uu yahay maalgashado ku sugan kenya wuxuuna yidhi wuxuu doonayaa inuu ganacsigiisa ku sii fidiyo uganda iyo tanzaniya aqoonsiga ganacsadaha iyo himiladiisa ayaa su'aalo laga keenay isagoo si weyn uga dhex muuqday warbaahinta kala duwan ee dalka hase yeeshee madaxweyne ku-xigeenka ayaa nacasnimo iyo siyaasad aan fadhiyin ku tilmaamay in qof ajnabi ah oo isaga la socdo lagu yidhaahdo waxaa looga shakiyey argagixiso isniintii kadib markii uu sugayey oggolaansho in ka badan 3 saacadood ah ayaa madaxweyne ku-xigeenka laga hor istaagay inuu u duulo uganda sarkaal ka tirsan dowladda uganda oo la yidhaahdo duncan abigaba oo ah agaasime ku-xigeenka xarunta isdhexgalka muwaadiniinta oo isku dubaridayey safarka madaxweyne ku-xigeenka ayaa b b c da u xaqiijiyey in ruuto laga filayey uganda waxa uu sharaxay in ruuto uu danaynayo qaar ka mid ah ganacsiga beeraha wuxuuna sidoo kale ka shaqaynayaa mashruuciisa jaamacadda makerere ee dr william samoy ruto center for leadership studies madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa ayaanan dib ugu raaxaysan xiriirkoodii walaaltinimo ay lahaayeen bilowgii sanadkii 2013 oo ahayd markii ay qabteen hoggaanka dalkani kenya xiriirkooda ayaa xumaaday kadib markii ay isgacan qaadeen hogaamiyaha mucaaradka raila odinga iyo madaxweyne uhuru kenyatta sanadkii 2018 kadib doorashadii ku-celiska ahayd ee muran ka dhalisay tan iyo markaasina madaxweyne ku-xigeenka wuxuu u muuqday mid dhinac ka taagan waajibaadka rasmiga ah ee dalkani kenya aad ayuu u mahadsan yahay cabdiqaadir yuusuf cali oo warbixintaasi nala socodsiinayey haatanna waxaa la soo gaaray xilliyadii aan hawada idiin soo marin jirnay qodobada warka ugu doorka roon ciise xaaji cabdulle ayaa ila fadhiya ciise ciidamada dowladda afghanistan ayaa sheegay in iska caabiyeen weerar ay kooxda talibaan ku soo qaaday xarunta taliska booliska ee gobolka helmand ee koonfurta dalkaasi markii horeysay wararku waxay sheegayeen in dagaalyahanada ururka talibaan ay ku sii siqayeen magaalada lashkargaa galinkii hore ee maanta ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay weerar culus oo lagu qaaday guriga wasiirka gaashaandhigga afghanistan ee ku yaala kaabuul bismillah qaan maxamedi ma uusan joogay gurigiisa xilli dable ay isku qarxiyeen baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ay la beegsadeen goobta amnigeeda sida weyn loo adkeeyey ee aagga cagaaran ee dalkaasi afghanistan madaxweynihii hore ee koonfur afrika jacob zuma ayaa talaadada nagu soo aadan laga sii dayn doonaa xabsiga si uga soo hormuuqdo maxkamadda dhegaysan doonto dacwadda musuq maasuq ee loo haysto go'aankan ka soo baxay maxkamadda ayaa imaanaya toddobaadii kadib markii in ka badan 300 oo qof ay ku dhinteen rabshadihii ka dhashay xiritaanka zuma waxaana lagu wadaa in la xoojiyo amniga dalkaasi xilli ay muuqato in taageerayaashii zuma ay isugu soo ururin doonaan maxkamadda ku taalla magaalada pietermaritzburg ugu dambaytana dowladda etoobiya ayaa hakisay shaqadii ay gobolka tigray ka qaban jireen 2 hay-adood oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka hay-adda MSF waxaa looga joojiyey howlihii gargaarka ay ku fulin jireen tigray iyo 3 gobol oo kale halka NRC ay sheegtay in tallaabadan ay saamaysay howlihii samafalka ay ka qaban jirtay guud ahaan etoobiya waa uu mahadsan yahay ciise xaji cabdulle oo noo dulmarayay qodobada warka caalamka ugu doorka roon waxyaabaha kale aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah labada xubnood ee guddoonka igula soo baxay labaduba waxay ka soo baxeen mucaaradka xisbiga ucud bay ka soo baxeen marka labaadna xalaftii doorashada halkaasay ku dhammaatay waxaan guddoomiye u noqonayaa gole la yidhaahdo golaha wakiilada oo mid ah odayna aanu ahay iskuwadkoodii inaan mas-uuliyaddeedu aniga isaaran tahay waa waraysi gaar ah oo aan la yeelanay guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan oo qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaan hase yeeshee haddii aan eedna dhanka iyo dalka etoobiya dowladda dalkaasi ayaa hakisay howlaha samafal ee 2 hay-adood oo caalami ah oo ka shaqaynayay gobolka tigray ee waqooyiga dalkaasi oo muddo 9 bilood ay ka socotay colaad hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF Holland ayaa laga joojiyey gobolka Tigreeda iyo 3 gobol oo kale halka hay-adda NRC ee Norway ay sheegtay in go'aankaasi dawladda uu saameyn ku yeeshay howlaheeda guud ahaan dalkaasi Ethiopia dawladda dalka Ethiopia ayaa labadan hay-adood ku eedeysay faafin warar been abuur ah warbixinta arrintaasi ku saabsan waxa inoo soo dirtay wariyaha BBC da Catherine Bayuranga waa tan Faadumo Macalin Abukar oo soo jeedinaysa
xilli ay ururo badan oo gargaarka ka shaqeeya ka cabanayaan caqabado badan oo ay kala kulmeen inay gargaar geeyaan gobolka Tigray ayaa waxaa la sheegay in amarka dowladda Itoobiya uu ka sii darayo xaaladda. Guddiga qaxootiga ee Norway ayaa caawinaad u fidiya ku dhowaad 600,000 oo qof oo ku sugan Itoobiya. Hay'adda caafimaadka ee MSF ayaa sheegtay in kadib joojinta qaybteeda Holland ay weli qayb kale ka howlgalaan Tigray iyo weliba qaybo kale oo dalka ka tirsan. Labada urur ayaa horey waxay uga hadleen inaysan jirin caawinaad gargaarka degdega ah oo la gaarsiiyo gobolka Tigray, balse dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in kooxaha gargaarka ay faraha la galeen waxaana shaqadooda ahayn, ayna shaqaalaysiiyeen shaqaale ajaanib ah oo aanan haysan waraaqaha ogolaanshaha inay dalkaasi ka howlgalaan. way mahadsantahay Faado Macalin Abukar oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha BBC-da Catherine Bayuruhanga. Haddaba mamnuuciddaasi dowladda Itoobiya ay mamnuucday hay'adahaasi samafalka muxuu ka qabaa xeerka caalamiga ah ee arrimaha bani'aadanimada, maxaase loo fasirin karaa go'aankaasi dowladda Itoobiya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan u bandhigay Maxamed Axmed Cali oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha bani'aadanimada. sawirka guud gobolka Tigray ka jira ee xagga humanitarianka ah in ay go'doonsanayd oo ay ka go'doonsanayd xagga Suudaan iyo xagga Itoobiya iyo xagga Eritrea. Marka go'doomintii horey loogu hayay oo dowladda Itoobiya lagu eedeynayay inay maaragtay caawinadii diiday inay u socoto xaggii maaragtay u baahan in lagu kabi karo. Markii horena jamac baa hay'adaha loo go'doomiyey oo dee mar ay wax soo marsiiyaanba markii horeba ma ay jirin. Haddana waxaan u malaynayaa in si gaar gaara loo beegsanayo waana runtii dambi weeye. waan fiiriyo xeerarka caalamiga ah iyo humanitarianka. Dowladda Itoobiya horey waxay ugu eedeysay qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah in ay hub iyo taageero siinayaan fallaagada Tigrayda. Marka maxay ka dhigan tahay eedeynta noocaas oo kale ah? Horta anagu meesha ma joogno, laakiin waxa weeye gobolka Tigray 3 meelood baa laga geli karaa. Meel waa dhanka Eritrea, meelna waa dhanka Itoobiya, dhinacna waa dhanka Suudaan. Saddexdaba dowladda Itoobiya joogta iyo Eritrea oo aan midna heshiis la ahayn Tigray. Marka waxaan u malaynayaa waa un marmarsiyo dambigooda ku qarinayaan weeye, laakiin caddaynna ma ay keenin oo caddayn baa loo baahay. Eedaynta inay eedayn ka horgeynayaan, marka caddayma ay soo bandhigeenna mayna arag. Laakiin suurtagal ba waa hay'adaha, sababtoo ah hay'adaha dhanka Suudaan xuduudda Itoobiya joogta iyo Eritrea baa jooga. meesha kale laga geli karo waa hawada Itoobiya haysata oo ma ay ogola inay ka aado. Marka xaggee bay soo marsiinayaan hubka iyo saanada hay'aduhu. laakiin waxaa la eedeynayo waa hay'ado samafal oo la leeyahay arrimihii bani'aadanimada ayay ka wacdeen oo waxay aadeen dhanka inay taageeraan koox fallaaga dowladda ku ah. marka soo arrintaasi ay caqabad kuma noqon karayso gargaarkii la doonayay in la gaarsiiyo dadka baahan ee dhibaatada ay haysato. arrinta tan horta eedaynta ah oo koox la eedeeyo si oo marmarsiyo loogaga dhigto wax cusub maahan, wax meelaha dagaaladu ka dhacaan oo dhan ay isticmaalaan weeye. caddayn ay Itoobiya keentay oo hadda xaqiijinaysa in maaragtay hay'adahaasi hub wadeenna anigu ilaa haddana ma maqal. eedayn un baan maqalnay. eedayntaasna haddii go'aamadii dowladda Itoobiya ay meesha ku go'doominaysay baa laga yaabaa inay ugu maaragtay marmarsiyo u raadinayso. haddii dowladda Itoobiya oo maalmahanba eedeynaysay qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ay qaadato go'aan ka lamid ah oo ay ku soo rogto hay'ado kale oo samafal, ma qabanayaa sharciga caalamiga ah ee arrimaha bani'aadanimada? sharciga caalamiga already Ethiopia violations fara badan bay ku samaysay. in gaarka loo adeegsado dad 6 milyan baa ku nool gobolka Tigray, dagaalaha ka socday dhammaantood waa baahan yihiin. 4 milyan ku dhawaad baa waxaa la sheegayaa inay ku jiraan xaalad khatar ah. in hawadana laga go'doomiyo, dhulkana laga go'doomiyo ayadaa dambi ku filan. haddana inay hay'adihii target garaysto oo ay hay'adihii ka shaqeynayay caqabad geliso waa dambigii unbay kororsanaysaa. waana dambi violation weeye. sharciga maaragtay caalamiga waa ku xadgudub bay ku tahay. eedaha xukuumadda Addis Ababa oo kaliya miyaa yeelanayso mise xitaa hay'adahan way soo galayaan maadaama iyaga la tuhmayo oo ay tahay in ay nidaamkii dawliga ah ka wareeganayaan oo ay mucaarad taageerayaan? horta nidaam mucaarad ay taageerayaan uma maqal. waxa weeye marka hore dawladday waajib ku tahay inay hay'adaha u fududeyso inay gaaraan dadka baahan. haddii dawladda laga kari waayo adiguna hay'ad aad tahay waxbaa isu dheelitiraysaa. ma dadkii baa loo gargaaraa mise dawladda waxaa lagu ixtiraamaa, go'doominta lagu ixtiraamaya. tuhurkuna waa tuhurda ilaa caddayn la helo. caddayn ilaa haddeer caddayn ay Ethiopia soo bandhigtay hub hay'ado wada oo inta lagu qabtay lasoo bandhigay ma aanan arag. laakiin tan Ethiopia teel caddaymay leedahay dad 6 milyan ah inay go'doomisay oo mucaawanada u diiday, hawada ka go'doomisay, dhulka ka go'doomisay. waa arrin xaqiiqo ah oo aan caddayn u baahnayn, caddaynteedana lahayo. qaabkee ayay ahayd in colaadan gobolkaasi ka jirta loo maareeyo marka la fiiriyo xeerka caalamiga ee arrimaha bani'aadanimada gaar ahaan goobaha colaadda?
wallahi waxa weeye engagement waa inuu ahaada horta marka koowaad dad civilian inaan la taarget garaysan hantidooda iyo iyaga inaan dagaalka lagu taarget garaysan inaan lagu dhex diriirin dadka shacabka dhexdiisa in hantida sida beeraha sida maaragtay kaydadka cuntada sida suuqyada sida infrastructure-ka buundooyinka inaan la jebin oo la burburin in la ogolaado mucaawinada iyo dadka ka shaqeynayaaba inay dhex maraan dhinacyada diriraya haddii maxaabiis la qabto in si bini-aadamnimo leh loola macaamilo. kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed cali oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha bini'aadanimada oo qadka telefoonka iigu waramayey. dhanka iyo somalilan haddii aan eegnana guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee jamhuuriyadda iskad uga dhawaaqday madax bannaanida ee somalilan ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono midaynta iyo sidii cadaalad lagu samayn lahaa xildhibaanada iyagoo aan la eegaynin xisbiyadooda. guddoomiye cabdirasaaq khaliif axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa shalay kursiga ku hantay 42 cod. waraysi gaara uu siiyey BBC-da ayuu ku sheegay in muhiimaddu ay tahay in dadweynaha loo shaqeeyo. waraysigaasi waxaa la yeeshay wariyaha BBC-da Axmed Nagaashe. والله dareenkaygu aad u wanaagsan yahay waa dareen farxadeed marna waa dareen mas-uuliyadeed oo runtii culaystaan dareemaya hawsha noo taalla waa xil aada u ballaadan runtii dadweynaha reer somaliland oo u codeeyey isbedel filashadooda aad bay u weyn tahay waxaa laga yaabaana inay adkaato filashadooda iyo waxaa la qaban karaa inay kala bataan laakiin annaga dadaal baana saaran oo qofka bini aadamka xilka ilaahay saaray marba waa intii uu gudan karo waxaana deenayaa inaan idanka ilaahay xilgudasho dhab ah dadka iyagiina soo doortay inaan loo abaalgudi doono oo wixii aanu qaban karro aanu qabanno. guddoomiye ku-xigeenkaagu walow uu ka soo baxay xisbiyada mucaaradka haddana markii dambe waxa uu sharaxnaa xisbulxaakimka waanaynu ognahay inay xanafi ka dhalatay loolankii adkaa ee aad xilalkaa u gasheen. xanaftaasi ma xafiiska idinla geli doontaa mise si aad ku wada shaqaysaan oo fudud ayaa iman doontaa? labada xubnood ee guddoonka igula soo baxay labaduba waxay ka soo baxeen mucaaradka xisbiga ucud ay ka soo baxeen marka labaadna haddii xataa xisbulxaakimka ka soo bixi lahaa xanaftii doorashada halkaas ay ku dhammaatay waxaan guddoomiye u noqonayaa gole la yidhahdo golaha wakiilada oo mid ah odayna aanu ahay iskuwadkoodii ina aan mas-uuliyaddeedu aniga isaaran tahay xukuumadda laftigeeda iyo madaxweynahana haddii uu jiray loolan iyo kalfiixasha way dhammaatay maanta dan baa loo wada gudbayaa xil baana na saaran nin walbana xilka meesha kaga aadan buu kaga beegmi doonaa haddii ilaahay idimo wax dambe oo isjiidjiidana ka tegi mayso aniguna insha allah waxaan isleeyahay habdhaqankeedii waad la imanaysaa madaxweynuguna waxa uu muujiyey runtii soo dhoweyntii ku habboonayd xaqa loogu lahaa anigana layga fili maayo dhacdhac iyo waxyaabo kale oo aan munaasib ahayn xuquuqo iyo waxaa jira iyo xadad sharcigu u sameeyey hay-adaha dowladda ee kala duwan wixii awoodaha iyaga iyo mandatka iyaga ana cidna uma daba fadhina annagaa qabsanayna marka waxaan isleeyahay waa uun isdheelitir iyo check and balance unbaa meeshii laga rabaa mooyaane wax kala jiidasho iyo cunfi iyo xumaanidinama dhici doonto. mar haddii marka hore uu qorshihiinu ahaa isbahaysigu inuu wada helo hoggaanka golaha oo dhan laakiin markii dambe ku-xigeenkaagu uu ahaa xubnihii xisbiga ucid ka soo baxay ee isbahaysiga la yeeshay xisbulxaakimka arrintaasi isaga iyo xisbigii uu ka soo baxay ee ucid wax adayga oo shaqadaadii hor istaagaysa iyo tiinii shirguddoonka ma ka dhalanaya? maya waxa weeye awooda dastuuriya baa jira guddoomiyaha awood u leeyahay ku-xigeenaduna awooday leeyihiin nin walbana wuxuu barakarayn doonaa oo ku dhaqmi doonaa awoodihiisa dastuuriga ah run ahaantiina ismadii xanaf baa dhex taalla saaxiibka saciid oo ah guddoomiye ku-xigeenkayga iyo xisbigii uu ka soo baxay waxay ahayd in ay isla garan waayeen isaguna de runtii xaq buu leeyahay damac siyaasiya inuu yeesho iyo hunguri inuu xel qabto xaq buu leeyahay xisbiguna inuu wax garto oo si kala daban u arko xaq buu leeyahay marka labadaa unbaa la isla sheegay ismadii iyaga laftigooda dhibbaa dhex yaalla. dadka faaleeya siyaasadda somalilan weliba maalmihii ugu dambeeyey ka hadlayay waxay sheegayaan xisbiyada mucaaradku markii hore culays badan kumay haynin xukuumadda laakiin mar haddii imika golihii wakiilada ay hoggaankii u qabteen waxay ka dhiganayaan madal ay ku adkeeyaan oo ay wax walba kaga hor yimaadaan si ay isu muujiyaan inay haatan mucaarad adag yihiin. taasi ma dhici doontaa? golaha wakiiladu sidii aan kuu hormariyey wuxuu leeyahay awoodo dastuuriya buu leeyahay awoodihiisa dastuuriga ahina waxa weeye waxaa ka mid ah hayadaha dowladda oo dhan inuu la shaqeeyo wax kasta oo xukuumadda iyo madaxweynuhu ay xaq u leeyihiin ee golaha yimaada waa xaq dastuuri ay leeyihiin inay golahu kula shaqeeyaan ama aan odaygu ahaanaya waa waajib dastuuri oo aniga isaaran
waxaa la rabaa xukuumadduna inaanay geysanin oo ka digin awood dastuuri oo aanu anagu leenahay. waxaan rajaynayaa inuunay noqon doonaan laba gobol isdhamaystira. hawsha ugu horraysa ee aad haatan is leedahay waa ta ugu mudan ee ay tahay inaad ku dhaqaaqdaan maxay tahay? runtii hawsha ugu mudan aanu ku dhaqaaqayna waxa weeye tallaabooyin isriga oo badan baa noo yaala. marka koowaad waa dhismihii guddiyo shaqo oo ka shaqeeya howlaha qaranka u shaqeeya, dib u eegis iyo dib u habeyn xeerkii golahu ku dhaqmi lahaa muddo shaqada soo socota, iyo wixii kale ee xeerar ee ada hore ugu yaalay ama hadda qorintooda ay u baahan tahay. hawlihii guud ee qaran ee ay ahayd inay la shaqeeyaan ka wada shaqeeyaan hayadaha kale dowladda ma yara hawsha u taalla. waxaa intaasoo dhan ka wensaan kuu hormariyey filashada bulshada oo aada u weyn oo ay tahay in ay buuxiyaan wixii ay ka awoodaan. kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed wuxuu u waramayey wariyaha b b c da axmed nagaashe. halkaad nala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c da. wararka caalamka haddii aan eegnana dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda afghanistan iyo dagaalyahanada ururka taalibaan ayaa ka soconaya magaalada lashkargah ee xarunta gobolka helmad ee koonfurta dalkaasi afghanistan. wararka ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu ka socdo meel u dhow ee xarunta ciidamada booliska ee magaaladaasi. dhanka kale ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay weerar culus oo lagu qaaday guriga wasiirka gaashaandhigga afghanistan ee ku yaala magaalada kaabul. wasiirkaasi bismillaah khan moxamed ma uusan joogin xilliga gurigiisa lasoo weerarayay. wararka arrintaasi ku saabsan ee b b c du qortay waxaa inoo haya faarax lamaane. qoyskiisa ayaa la soo badbaadiyey waxaana la dilay 4 ka mid a raggii dableyda ahaa sida ay saraakiil sheegeen. kooxdu waxaa kaloo ay ka digeen weeraro dheeraada oo lagu qaado hogaamiyeyaasha xukuumadda. arrintan ayaa waxa ay timid iyadoo dagaalku uu ku sii fiday magaalooyin kale kadib markii ay ciidamadii shisheeye dalka ka baxeen. golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysana waxa uu ku baaqay in degdeg loo joojiyo dirirta. in ka badan 20 qof ayaa iska horimaadkaas ku dhaawacmay. boolisku waxa ay sheegeen in 4 ka mid a 5 qof ee weerarka soo qaaday la dilay kadib markii ay gudaha u galeen guriga wasiirka. wasaaradda arrimaha guduhu waxa ay sheegtay in weerarku uu ahaa mid qarax isbiimayn ah loo adeegsaday. ciidanka sida gaarka u tababaranaya degdeg waxay u gaareen xaafadaha dibadda ka ah aagga cagaaran, halkaasoo ah meel aad loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan tiro safaarado iyo dhismayaasha dowladda ah. weerarka ayaa waxa uu soo afjarmay kadib in ka badan 3 saacadood oo rasaas la isweydaarsanayay. bismillaah khan maxamadi waa wasiirka gaashaandhigga ee afghanistan waxaana weerarka kadib uu soo saaray hadal uu fiidiyo ku soo duubay. waxaa weerar ismiidaamin ah lagu qaaday gurigayga kaasoo ay fuliyeen argagixiso dadcun ah. alle ayaa mahad leh. aniga iyo xubnaha qoyskayguba waxyeello inagama soo gaarin weerarka, balse nasiib darro qaar ka mid ah ilaaladayda ayaa ku dhaawacmay. waxaan idiin xaqiijinayaa dhammaantiin walaalahayga qaaliga ahow in dhacdooyinkani aysan waxyeello u geysan doonin niyaddayda iyo go'aankayga aan ku difaacayo adinka iyo dalkayguba. dagaallo culus ayaa iyana labada dhinac lasoo sheegay inay xalay ku dhex mareen magaalada lashkaar gah. dadka deegaanka iyo kuwii halkaa ku qaxay ayaa waxaa lagu wargeliyey inay isaga guuraan. qaarkoodna waxaa u suura gashay inay ka baxsadaan deegaano ay ku yaalaan dhismayaal ay dowladdu leedahay, laakiinse waxaa aad u yar meelaha nabdoon ee la aadi karo. dhinaca kalena goobaha uu militarigu gacanta ku hayo ee ku yaala gobolka helmaan ayaa waxaa ku dhacay gantaallo maraykanku uu soo riday. booliska kaabulna waxa ay sheegeen in bam wadada dhinaceeda la dhigay uu dhaawacay 3 qof. dadka magaalada kaabul iyo magaalooyin kale ayaa waxa ay ku qaylinayeen allahu akbar ayaga oo taageero u muujinayay qolyaha iska caabinta kala hor yimid Taliban. arrintan ayaa dhis waxay u noqonaysaa ciidanka amniga ee afghanistan ee dagaalka kula jira mintidiinta isku dayaya inay ka qabsadaan tiro magaalooyin ah. qabsashada lashkaar gah ayaa qiimo weyn waxay u leedahay kacdoon wadayaasha ayaga oo weli hore ugu sii socda duulaanadooda kadib ka bixitaanka ciidamada shisheeye. helmaan ayaa ah halka xudunta u ah ololaha maraykanka iyo britain. taliyaha ciidamada ingiriiska sir nick carter waxa uu b b c da u sheegay in istaraatiijiyadda Taliban ay tahay mid la sii filayay, hase yeeshee aysan ka muuqan wax calaamada oo muujinaya goorta ay dhammaanayso.
for the Taliban, the south, and there I'm talking about Helmand and Kandahar. ururka Taliban ayaa jooga dhankan koonfureed halkaasoo ah Helmand iyo Kandahar laakiin sidoo kale waxay ku fidsan yihiin Herat waana goobo muhiim ah maxaa yeelay inta badan dadka ku nool waa Bashtuun dabcan haddaad dib u noqoto sanadihii 1990-aadkii taas oo halkii ay asalkooda ka yimaadeen marka iyagu waxay haystaan goobo ay si adag uga dagaalami karaan sidaa darteed waxaan filayaa inaanu jirin qof shaki ka qaba inay dagaallo ka dhici doonaan Helmand iyo Kandahar arrintaasi Herat haatan waxaan filayaa inay tahay wax macquul ah inay ciidamadu ay si kalsooni leh dib isaga caabi karaan dagaalka lagu soo qaaday. And at the moment I think the Afghan army can be reasonably confident that it is fighting back. horaantii toddobaadkan ayaa Ataa-ullah Afghan oo ah madaxa guddiga gobolka Helmand waxa uu qirtay in dagaalku uu faraha ka sii baxayo Taliban ayaa iyagana waxoogaa guulo ah gaaray toddobaadkan inkasta oo diyaaradaha dagaalka ee Afghanistan iyo kuwa Mareykanku ay bartilmaameedsadeen. aad ayuu mahadsan yahay Faarax Lamaane dalka Kenyana baarlamaanka dalkaasi waxaa ka socota dooda hindise sharciyeed uu baarlamaanka u gudbiyey xildhibaanka laga soo doorto Gaarisa horeyna uu ahaan jiray hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya hindise sharciyeedkaas lagu magacaabo waqaf ayaa hadda waxa uu maraya akhriskii koobaad ujeedada ayaan ka waraystay xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo khadka telefoonka igu waramay. sharcigan wuxuu jiray waktigii waddankan hadda xornimada u helin nimankii carabta oo beriga joogeen gobolka xeebta waxaa la dhihi jiray 3 Mile Street ayaa loo sameeyey wuxuuna ahaa sharci dadka meesha degan ay ku ganacayeen xoolaha muslimiinta ama zakada haato ama sadaqada haato ee oola baxaan inay ama madaaris ama masjid ama meel carruurta agoomaha lagu xananeeyo oo ade xoolaha muslimiinta meel kays laisku keeno markaad fiiriso ereyga waqaf marka maadaama sharciga waktiga dowladdan waddanka ay dhisnayn dib baan u cadaynay ururaha muslimiinta waddankan guddiga sameeyey 2015 ay ka mid yihiin masjidka weyn ee Jamia iyo culummada muslimiinta ee waddanka Kenya waa laga tashaday marka waxaa la soo saaray sharcigan hadda hor yaalla baarlamaanka oo ani aan saxiixay marka wuxuu samaynayaa sharcigan sharci cusub uu keenayaa oo waafaqsan dastuurka waddanka guddiga ayuu ballaarinayaa inuu noqdo guddi waddankoo idil gobolladoo idil saameynayo dhaqaalahan wuxuu kaloo samaynayaa sidan loo maamuli lahaa sidii loo ilaalin lahaa dadka ilaalinaya in ay yihiin dad la soo xulay oo qualificationkooda lagu soo qoray sharciga marka waa shay ugu horreeyey oo waddankan hadda aan haddii baarlamaanka uu dhameeyo bisha dambe madaxweynaha uu saxo noqon doona kii ugu horreeyey gobolka iyo regionkaba sidii lagu maamuli lahaa dadka muslimiinta oo ilaahay hantida siiyey oo rabaan hantidooda inay oola baxaan fii sabiilillaahi oo lagu dhiso amuuraha diinta islaamka waafaqsan diinta islaamku dabcan waqafku way ogoshahay dadyowga Kenya jooga ee muslimiintahana dabcan hantidooda waxyaabaha sida agoonta oo kale way ku maalgeliyaan marka waxaa la isweydiinayaa sababta loogu baahan yahay in sharci laga dhigo sharciga Kenya wuxuu noo ogol yahay inaan ku maamulno diinteenna kutubka quraanka iyo sunnada nebiga arrimaha guurka iyo dhaxalka iyo furitaanka hadda waxaan kaloo keenay inaan arrimaha waqafka u noqdo arrin la habeeyey arrin dastuuri arrin muslimiinta oo idin u dhexeeyo marka tan kama reebayso midda ani aan sameeya ama dad badan ay sameeyaan inaad shaksiyan aad madaaris aad dhisto inaad shaksiyan masjid u sadaqayso dhisto waalidka oo dhintay u sadaqayso laakiin waxaa jiraan hay-ado fara badan oo rabaan inay waxooda soo mariyaan ururka la yidhaahda waqf commission marka maadaama uu xoolaha dadweynaha muslimiinta loo dhiibayo commission oo hadda jirto waa in commissionkaasito ay iyadana sida suuqooda xoolaha muslimiinta la ilaaliyo Kenya dabcan dastuur ayaa ka jira dastuurka Kenyana waa mid madani ah oo diin inta badan kuma salaysno marka hindisa sharciyeedkan aad haatan baarlamaanka geysay iyo dastuurka Kenya marka ma iswaafaqayaan sharcigan ayto waxaan saxay waxaana ka shaqeeyay waqtigii aan ahaa gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka markaan ahaa sharcigan waxaan iskala shaqeynay ninkii ahaan jiray horaan attorney generalka waddanka Gidi Mugai iyo ururaha muslimiinta ee waddankan ay ku jiraan saa ku sheegay masjidka Jamia kabacdi waxaa jiray golaha wasiirada madaxweyne Uhuru waa soo ansixiyeen marka sharci waxa weeye dowladda Kenya ay ogoshahay marka annaka ay noo taalaa madaxda muslimiinta inaan difaacno
aana dastuurka waddankan aan wax ka bedelno wixii aan ognahay inay danta muslimiinta iyo diinta ay waafaqsan tahay marka laazimo diinta sharciga baarlamaanka waxaa loo sameeyey sharci bedel mid maaragtay waddanka kenya dastuurkeeda khilaaf u keenayso ma laho marka ma is leedahay sharcigani ama hindisi sharciyeedkani madaxweynaha wuu saxiixi doonaa wuuna dhaqan geli doonaa wuxuu noqon doonaa sharci rasmi ah insha allahu annaka talada ilaahay baan saarnay tala bini aadam maana saaranin arrin kasta oo aan gacanta saarno oo ummadda muslimiinta u danaynayo ilaahay baa garab nagu siinaya marka madaxweynaha maadaama ay soo martay golaha wasiirada oo uu yahay sharci dowladda kenya ay qayb ka qaadatay markii la samaynayo marka waxaan leenahay waa la saxiixi wuuna hergeli markaana waa arrin weliba muslimiinta khaas u kaasi wuxuu ahaa xildhibaan aadan barre ducaale oo qadka telefoonka igu warramayey ciyaarihiina louis van gaal ayaa markii saddexaad loo magacaabay tababaraha xulka holland wuxuuna bedelayaa frank de boa oo shaqadaasi ka tagay bishii hore kadib guuldaradii ka soo gaartay kulankii jamhuuriyadda jeega ee wareegii 16aad ee euro 2020 van gaal ayaa markii ugu horreysay kooxdan soo maamulayay intii u dhexaysay 2000 ilaa iyo 2002 halka markiisii labaadna uu macallin ka soo noqday 2012 ilaa iyo 2014 van gaal tababaro muusan noqon tan iyo markii laga ceeriyey united sanadkii 2016 haatan wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay markana magaalada Garowe halkaasi oo si habsame uga socda tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada Puntland ciyaarahaasi waxa ay ka dhacaan garoonka Mire Awaare tartankan waxaa la dheelin sanadadii la soo dhaafay waxaana u daawasho tagay haatan wariye Axmed عول جامع oo Garowe warbixintan ka soo diray waa kulan ciyaareed ay wada ciyaarayaan sagaalka gobol ee Puntland ciyaaryahannadan koox kasta waxa ay xusul doog ugu jirtaa in ay koobka ay geeyaan gobolkooda qaarkood waxa ay ka soo socdaaleen gobol la jira masaafo ka badan 1 kiiloomitir sida gobolka Gardafu oo magaalada madaxdiisu ay tahay Calwula ciyaarahan ayaa baaqday 7 sano ugu dambeysay waxaase sanadkan ay yihiin kuwa ku qabsoomaysay isku tashiga iska wax u qabso inkastoo abaabulka ay lahayd wasaaradda ciyaaraha ee Puntland balse dhalinyarada ayaa waxa ay isku abaabuleen si iska wax u qabsaa maxamed cabdirasaaq waa macalinka kooxda gobolka Mudug waxa uu sheegay in wasaaraddu ay ku wargelisay gobolka in ay soo ambabixiyaan ciyaarahan walaaluu sanadkan wuxuu uga duwan yahay horta sida la socotid wasaaradda shaqaalaha dhalinyarada ciyaaruhu warqad ay soo saadhay waxay ku amadhay gudoomiyaasha gobolada in ay soo xulaan ciyaarihii inay soo xulaan gudoomiyaasha gobolada Mudug iyo sidoo kale 8 gobol oo kale dhamaantood waxa lagu amray inay soo ambabixiyaan ciyaartooyda gobolka maaliyadihii iyo kabihii iyo qarashaadkii ciyaartooyda ku bixi jireen ay soo abaabulaan xagga ka soo abaabulaan dhanka kale waxa BBC-da la hadlay Yacquub Cismaan oo ah macalinka xogeenka xulka gobolka Nugaal isagoona dul istaagay arinta isku tashiga waxa uu sheegay in ay tahay arin muhiim ah barnaamijkan kolay barnaamij mar hore soo bilowmay buu ahaayo koobka waxa lagu qabanay ugu weynayd waxay tiimamku iyagu isku tashtaan gobolada Puntland oo dhan waxa weeyaan la soo diyaariyo dhinac walba anaga gaar ahaan gobolka Nugaal tabaabushkeena iyo bilowgeena iyo soo diyaariskeena wuxuu bilowmay ilaa iyo bil ka hor si wanaagsan bayna noogu socotay sidii ka muuqatay geemkii dhaweetay walowna la ka badiyay qalabka kala midka gadanay qalabka kale anaga gadanaynay materialka iyo waxa soo idil anaga gadanaynay garoonkaas un baa anaga hawayaan iyo shaqadiisana la karibay insha Allah waa garta marka waxyaabo kale wasaaradda ka saacidaysa maxaa kamid ah wasaaradda waxa weyn naga saacidaysa waxa weeyaan hadda maaliyadaha oo ay qolada xiriirka ay wasaaradda keeneen intaas un bay wasaaraddu naga saacidaysay Axmed Maxamed Cabdullah Tigana agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha ee Puntland waxaan wax ka weydiiyay waxa ay u qabtaan ciyaaraha iyagoo aan awoodin qarashka in ay ku maalgeliyaan hawlaha qabanayna anigu agaasinkii guud waxaan sameynay 2 guddi xiriirkii kubadda cagta Puntland baa isna jooga oo qayb ka ah barnaamijkan anagu waxaan hay siyaasadii guud iyo qabanqaabadii tartanka inaan hagno weeye guddiga qabanqaabada ayaa jira guddiga anshaxa guddiga farsamada iyo xeerarka cid walba waa wada shaqeynaya si barnaamijkan uu najaxo codkaas waxa uu dambeeyay warbixintii Axmed Cawil barnaamijkii dunida iyo maanta oo la socodsiinay anigoo Xasan Cali Gelana waa naga intaa waxa soo dubariday Cabdiqaadir iyo Maxamed Cabdiraxmaan tan iyo 7 aroornimo waa BBC-da idan leh sidaas iyo nabad gelyo